kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn oo warka galwareed media waxaa ka mid ah afhayeenka al-shabaab oo fariin culus u diray shacabka waqooyi bari Kenya iyo dowladda Kenya oo soo saartay tirada macallimiintii al-shabaab ay ku dileen gobolkaasi Puntland oo hanjabaadii ugu kululeed abid u dirtay dowladda Soomaaliya IMF oo boqol dal ka xaqiijisay maalgelinta diin cafinta loo sameeyo Soomaaliya wafdi ka socda midowga Yurub oo Hargeysa tagay iyo khilaaf ka dhex bilowday iyaga Muuse Biixi iyo mooshinka dhinaca sharci oo farmaajo saxiix rabo loo gudbiyay baarlamaanka UK haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 27 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno warka ka soo baxay al-shabaab ururka al-shabaab ayaa soo saaray digniin culus oo ku socota dowladda Kenya iyagoo fariin u diray dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka waqooyi bari dalka Kenya warbaahinta al-shabaab ayaa baahisay codka afhayeenka ururka Cali Maxamuud Raaki Cali Dheere oo arrimahaasi ka hadlaya muddo ku siman 20 daqiiqo isagoo sheegay in u damqanayaan dadka muslimka ay ku nool gobolkaasi afhayeenka al-shabaab ayaa sheegay in haatan dowladda Kenya ay ku jirto xaalad rafasho ah dadka muslimiinta ahna waxaan uga digaynaa inay Kenyaatigaasi garab u noqdaan ayuu yiri sidoo kale sargaalkan u hadlay maleeshiyada al-shabaab ayaa dadka ku nool gobolka Soomaalida ee NFD ugu baaqay inaysan ku kalsoonaan siyaasiyiinta gobolkooda ku matala dowladda Kenya oo ku tilmaamay fuliyo aan wax damiir lahayn dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka waqooyi bari dalka Kenya ee NFD ayuu ugu baaqay Cali Dheere in ay isku tashadaan wuxuuna kalsooni ku qabnaa inay karti aqoon ku filan u leeyihiin oo ay heli karaan macallimiin muslimiin ah dhaqaatiir muslimiin ah iyo aqoon-yahano muslimiin ah intaba mana muuqato sabab ay ugu baahan yihiin Kenyaatiga ayuu hadalkiisa sii raaciyay qaybaha dambe ee hadalkiisa Cali Dheere afhayeenka shabaab wuxuu uga hadlay weeraradii toddobaadkii tagay al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin Elsaniini Qoryoole iyo deegaanka Lafoole oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose afhayeenka al-shabaab Cali Dheere waxa uu sheegay in saddexdii weerar ee maalinkaas ay fuliyeen dagaalamayaasha al-shabaab inay ku furteen hubiye gaadiid badan oo ay lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inay ku dileen askar badan warka Cali Dheere wuxuu imaanayaa xilli weerarkii ugu dambeeyay al-shabaab waa berigii hore shalay ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ku leeyihiin tuulo lagu magacaabo Dabasiti oo hoos tagta degmada Ceelwaaq halkaas oo ay ku sheegeen warkooda inay ku burburiyeen saldhiggii ciidamada iyo xarun deegaanka ay ku lahayd shirkadda isgaarsiinta Safaricom oo ka howlgasha dalka Kenya dhanka kale dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u shaacisay macallimiinta Kenyaanka ee al-shabaab ay ku dileen gobolka Soomaalida ee ay maamusho Kenya guddiga macallimiinta Kenya ee loo soo gaabiyay TCS ayaa sheegay in tan iyo 2014 al-shabaab ay ku dileen gobolka Soomaalida 42 macallin taasina iyagu walaac ay ku abuurtay gudoomiyaha guddiga adeega macallimiinta Kenya oo difaacaya sababta macallimiinta Kenyaanka ah looga saaray gobolka ayay ku dooday in shabaab ay dileen 42 macallin taasina ay sii socon karin guddiga ayaa macallimiin badan oo Kenyaana ka saaray gobolka markii ay sare u kaceen weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan halkaas gaar ahaan kuwa sida gaarka loola beegsanaya macallimiinta dhawaan hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa gudbiyay go'aan ka dhan ah macallimiinta laga saarayo gobolka taasoo sababtay in baarlamaanka uu u yeero guddiga magaalada Gaarisa waxaa laga diiwaan geliyay 180 macallin oo Soomaali ah kuwaasoo si tabarucaad ah ardayda wax ku bari doona maadaama macallimiintii dowladda ay gobolka uga baxeen baqdi naftooda ah IMF ayaa boqol dal ka xaqiijisay maalgelinta diin cafinta loo sameeyo Soomaaliya agaasimaha maamulka hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ku dhawaaqay xalay in IMF ay xaqiijisay ballanqaadyo maaliyadeed oo ku filan si loo maalgeliyo diin cafin buuxda oo loo sameeyo Soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay IMF $100 xubno ka ah IMF ayaa ballan qaaday in ka badan $334 milyan oo lagu maalgelinayo diin cafinta Soomaaliya marka ballanqaadkan laga dhigo
mid rasmi ah waxaa xigi doona hanaanka deymaha looga tirayo Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka. tani waxay gacan weyn ka geysan doontaa in la fasaxo lacag cusub oo kaalmo horumarineed ah taasoo dhabaha u xaari doonta ayaa lagu yiri qoraalka IMF. kobac sare oo buuxa Soomaaliya ayaa la filayaa in deynta lagu leeyahay oo ka badan 5 bilyan oo dollar laga cafiyo dabayaaqada bisha Maaj. Kheyre oo maalin ka hor ka hadlayay Muqdisho diyaar ahaan mar uu xariga ka jariyay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada waxa uu sheegay in maalmaha soo socda laga cafin doono Soomaaliya deyntii lagu lahaa. dhanka kale bangiga horumarinta Afrika ayaa ansixiyay hanaanka ay Soomaaliya ku cafinayaan 122.55 milyan oo dollar oo ay ahayd deyntii ku lahaayeen. kadib kulan ay shalay yeesheen agaasimayaasha bangiga ayay ku dhawaaqeen qorshaha deyn cafinta Soomaaliya. qaab dhismeedka ayaa lagu saleeyay Soomaaliya iyadoo heshay taageero deeq bixiyo si loo nadiifiyo dhammaan deyntii lagu lahaa. markaana Puntland maamulka Puntland ayaa hanjabaad kulul u diray dowladda Soomaaliya. taliyaha ciidanka booliiska dowladda Puntland General Muxudiin Axmed Muuse oo wareysi gaar ah siiyay Puntland Post oo laga leeyahay deegaanada maamulka ayaa ka warbixiyay howlgal culus oo booliisku ka bilaabay magaalada Garowe caasimadda Puntland. howlgalkaasi oo habeen ka hor ka bilowday Garowe ayuu taliyuhu sheegay in lagu qabtay dad ka badan 3 ruux oo ay ku tuhunsan yihiin dambiyo kala duwan kuwaas oo haatan ku xiran xabsiga dhexe magaalada Garowe isla markaana dhawaan sharciga la horgeyn doono. General Muxudiin ayaa sidoo kale si faahfaahsan wax uga warbixiyay dib u habeen ballaaran oo ku socota ciidanka booliiska Puntland si loo helo ciidan booliis ah oo tiro sugan leh. taliyaha oo la weydiiyay waxay Puntland oo qorsheysan haddii dowladda federaalka ay magaalada Gaalkacyo keento booliiska gaarka ah ee loo yaqaan Haramcad Turkiduna ay tababareen ayaa ku jawaabay Haramcad haddii ay keenaan Shabeel baa u diyaarsan. toddobaadyo ka hor gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya bisha soo socota ay keeni doonto sida ay xoga ku heleen ciidamo ka socda dowladda si ay Puntland Gaalkacyo uga qabsato. wuxuuna taliyaha markaasi ku hanjabay isagoo hadlayay in ay ciidanka tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan haddii Gaalkacyo dhankeeda waqooyi ay soo gaaraan. shacabka Dhuusamareeb ayaa bilaabay inay cadaalad u raadsadaan Al-Shabaab kadib markii ay dowladda Soomaaliya la wareegtay gacan ku haynta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa soo badanayay shacabka cadaalad u raadsanaya kooxda Al-Shabaab oo gacanta ku haysa qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug. inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay dadka Dhuusamareeb garsoor u raadsadaan kooxda Al-Shabaab haddana inta badan garsoorka dowladda ayaa la rumaysan yahay in si cadaalad ah u qaadin dacwadaha isla markaasna ay jiraan lacag laaluush ah oo ay qaataan. ciidamada caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa xaqiijiyay in gacanta ay ku soo dhigeen 2 qof oo ka tirsan shacabka Dhuusamareeb oo garsoor u raadsaday kooxda Al-Shabaab. 2 qof oo ay ciidamada ammaanka Dhuusamareeb ku qabteen ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cumar Jawle iyo Axmed Cumari waxaana la sheegay in hadda ku socota baaritaan ku aadan sababta keentay in Shabaab garsoor u raadsadaan. Jawle iyo Axmed ayaa la sheegay inay isku haystaan dhul ku yaala magaalada Dhuusamareeb isla markaana uu Jawle go'aan ku gaaray in Axmed Cumari ka dacweeyo maxkamadda Al-Shabaab. lama oga haddii ay labadaani shakhsi hore dacwadooda ugu gudbiyeen maxkamadaha dowladda ku yaala Dhuusamareeb iyo haddii kale. hoggaanka Al-Sunna ayaa hore dowladda dhexe ugu eedeeyay inay dayacday amniga Dhuusamareeb isla markaasna ay gacanta u gelisay kooxda Al-Shabaab. wafdi ka socda Midowga Yurub ayaa gaaray magaalada Hargeysa. safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Benjen iyo wafdiga hogaaminaya ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. safiirka iyo wafdigiisa oo ka kooban beesha caalamka ayaa kulamo la qaadan doona madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka oo khilaaf uu ka dhaxeeyo. wafdigan ayaa waxay sare u qaadi doonaan cadaadiska xooggan ee madaxweyne Biixi lagu saarayo inuu aqbalo qabashada doorashooyinka iyo sidii uu uga laaban lahaa qorshaha uu dhawaan shaaciyay dib u furista ururada siyaasadda. sidii ogaatay warbaahinta ujeedka wafdigan ayaa la xiriiray sidii madaxweynaha Somaliland ugu qancin lahaayeen inuu ka laabto qorshaha uu ku rabo in dib u furo ururada siyaasadda iyo arrinta komishinka cusub oo iyadana murugsan. khilaafka xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Biixi ayaa sii xoogaysay kadib markii madaxweynuhu dhawaan shaaciyay inuu dib u furayo ururada siyaasadda midaasi uu sheegay inuu xal u noqonayo khilaafka hareeyay labada dhinac. mooshin ka dhan ah sharci uu farmaajo saxiixi raba ayaa loo gudbiyay baarlamaanka UK.
baarlamaanka dalka UK ayaa la horgeeyay mooshin ka dhan ah sharciga saxaafadda Soomaaliya ee horyaalla madaxweynaha Soomaaliya kaasoo la filayo inuu saxiixo. Mooshinkan oo baarlamaanka loo gudbiyay 24 bishan ayaa lagu sheegay in aqalka hoose ee UK aad uga walacsan yahay sharcigan oo xadidi doona xorriyadda hadalka. mooshinkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in sharcigan uu soo ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya siinayo awood baahsan oo ay ku farageliso shaqada suxufiyiinta iyo hay'adaha warbaahinta isla markaana saameyn ku yeelato weerinta dhacdooyinka ay dadka xiiseynayaan. saaxiibayaal waa naga intaa warkii aad nagala socoteen haddii aad nagu cusub tahay subscribe channel-kan.